السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة عليه شرفت الوائد السلامين ميل بأجوكتين ومركا لي فيديو كان أحسب مركا هران كسلينو نبينا صوبا عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما تحيدي وضع فيديو كان أحسب لكن مالمها وصوداه ومسكول سناي سأكتب بالمية قدك وحلقة برايا وسكول لما أعدو marka ilmaha ku mashquulsanaay wax kala ma jirin asxaabteeda sharafta waxa kale oo idin ka codsanaaya YouTube labaad ayaa sameystay oo isqurxinta ah dadka xiiseenayo waxyaabaha la isku qurxiyo aan ugu talagalay marka asxaabteeda ugu xiran waxa idin ka dalbanaya in ay tagtaan oo subscribe ay soo saartaan insha Allah wax badan oo idin cajabiyo waad ka heli doontiin insha Allah sawirkiisana tabca shaashada idin saaran yahay marka maanta waxa idin wadaa qisaas gabar ay ku dhacday ayaa ila soo wadaagtay gabadha waxay leedahay waxaan deganeen Soomaaliya qaasatan Muqdisho waxay leedahay iskoolkii markaan dhameeyay magaaladii aan muxuu ahay dadka dhan way baxayeen hebel wuu baxay heblaay way baxday hebel wuu baxay heblaay way baxday buufisa ay galay dhahday reerkeena markaas waxa igu diraan oo meel igu gaarsiiyaan ma haysanin laakiin Kenya iska aaday si aan shaqo iskaga helo ama oo noloshayda wax aan uga bedelo ciideedna waxay dhahday way iska ladnaayeen laakiin muxuu ahay qarash meel dheer igu geeyaan markaas ma haysanin laakiin dad iska nool oo iska asturan oo nolol maalmeedkooda haysto oo muxuu ahay wuxuu Ilaahay u barakeeyay iska ahaayeen marka Kenya markaa iska aaday waqti yar markaan joogay muxuu ahay wiil ayaan waxa iska baranay qadkii markaan iska baranay wiilka wadamadaas Yurubta ayuu jiray Soomaalidana qurbo markay tagaan Soomaalinimada way jecel yihiin marka maadaama wiilkan wiil Soomaaliyeed uu yahay muxuu ahaa iidan hamigeed uu yahay maadaama asxaabteedii iyo dadkii isku faca ay hay'ad ay wada baxeen marka waxay isdhahdeen marka waxa ku imaadeen kii Yurub ku geyn lahay dabcan way isbarteen sheeko ayaa dhaxmartay waxay dhahday Facebook ayaan iska baranay kala dib telefoon ayaan kala qaadanay kadib WhatsApp ka iskala xiriiri jirnay dhahday almuhiim waxay dhahday ninkii waxa ku heshiinay guur ayaan ku heshiinay guurkii markii aan ku heshiinay wuxuu dhahay waxaan u arkay inuu mustaqbal iga rabo daacad yahay guur diyaar u yahay nin wanaagsan yahay oo sifihii ma aragtay nin mustaqbal rabo lagu yaqaano dhan aan ku arkay ana gabar markaas ahay guurna aan u joogo muxuu maadaama aniga tilaabadeedan ugu dheer ay Kenya gaarsiiso meel kale aysan gaarsiin karin marka waxay dhahday waxyaabo badan iskugu imaaday anoo tasarrufaadkiisa iyo dhaqankiisa ka helay iyo asiga wadamadaas horumar ka yimid gabdho nimanka wadamada horumar ka imaaday ama Yurubta ka imaaday iska jira been iyo propaganda ay wadaan almuhiim waxay dhahday sidii aan rabay ayuu ila noqday guur ayaan ku heshiinay wuxuu dhahay marka guurka naga dhaaf hoteelada lagu dhiganayo waxyaabahaas aan waxaan rabaa markaan ku imaado oo aqal galno inaan ku soo dacwoodo oo hore aan ka wataan rabaa marka waxay dhahday qarashka lagu baxaayo muxuu ahay anaga ayaa u baahan adiga wax kugu dhamaynaya Soomaaliya u noqo Soomaaliya kugu imaana Soomaaliya marka kugu imaado waa aqal galeena aroos iska basiid ah sameysanaynaa waa aqal galeena waa baxaya aniga marka sida ugu dhaqsiyaha badan aan rabaa inaan muxuu ahay kugu wato muxuu ahay qarash inuu wadan naga baxo ma rabi marka waxa uu arkay hadal run ah oo gar ah maadaama muxuu ahay ninka mustaqbal oo iga rabay oo marka arkay yani nin mustaqbal iga rabo ila ekay almuhiim waxay dhahday uu baxay uu imaaday aniga Soomaaliyan sii tagay Soomaaliya iga daba imaaday waxay dhahday waa isguursanay marka isguursanay aqal galnay Ilaahay amarkiisa waxay dhahday aroos uur ayaa Ilaahay iga dhigay waxay tii aroos weyn ima dhigin laakiin ciideedu iga doontay ciideedu wax ku fin ayaa la siiyay way ku faraxsanaayeen aniga waa ku faraxsanaay waxay tii waa aqal galnay asaga marka dabcan waxay dhahday ehelkiisa familidiisa iyo wali siiba yani dadka asaga ka soo jeedo dad reer Muqdisho u badan ma ahayn dadka gobolada ismaamulka u badan ayuu ahay oo wax qaraabo in Muqdisho ka joogaan mahana wax u dhow oo in adeer ama in abti ah oo ma laga helin Muqdisho ama wax la dhashtay Muqdisho ma joogin dadka ismaamul goboleedyada degan ayuu ahay almuhiim Ilaahay amarkiisa waxay dhahday marka aqal galnay aroos uur ayuu Ilaahay iga dhigay wuxuu ila joogay dhahday 3 bilood ayuu ila joogay kadib wuxuu aaday ciidihiisa iyo goboladii ay deganayeen ayuu aaday 2 bilood kale uu la sii joogay kadibna meesha
كإمادة وكون نقضي تري مدام أنا أقول يا شيء وحول هوا كوسو دذالايا وقت غير أنت إيجاد من عديد على قادنا يا كدبنا وبحايا مرك أنا جي السوق أيوه هاي المهم منك مو بحي منك مو ركوب بحي ودك كإمادة ونقضي حرير كيسي أنت ورت الصومالي أو جوجي أو عديس أو لسي جوجي وفعنا ليد هاي لكن مركو بحي وإسبدلي هذا الكوي رايستي مصروفك وإيجا جوستي بلو إسينا بل إسينا يو أصلا بإسبدل وين أياكو إمادي مرحو إليها واشقيا مرحو إليها مشقين بشان لعق مهاي مرحو إليها عديد يا برد بسانيسو أو لعق بدن على إيجو سو قري محو هاي إيه صبر لعق بدن على إيجا ربا محو هاي إيه صبر أديك ما أنا مرحو إيه كنا يتري هذا أو إقنعينايو ولكن محو هاي أنا وحدنا إيجو جرين لكن أو أكرون أو أك وقف أقل هذه لوشة وقاضنايو waxay dhahday markii dambe aan urkaygu wuu weynaaday waqtiga dhalmada ayaan gaaray waa dhalay tiri markii aan dhalay kadib muxuu ahay markii aan dhalay iyo markii bilihii bateen oo aan cuslaaday xoogaa markaas uu soo roonaaday bilwuna sii jiray wuu toosanay laakiin markii aan dhalay oo ilaahay ikala keenay waxay dhahday ninkii markaas ayaa iigu dambeysay markuu ogaado wixii aniga aan dhalay markaas ayaa iigu dambeysay telefoonkiisu iga badashtay meel aan kala xiriir male cidihiisana telefoon aan iga baray cidihiisi markaan weydiin waxay dhaheen anagaba meel kuma ogin fahamteen anagaba meel kuma ogin ayay dhaheen wadankeena magaalada markaas aan deganayn ayaga ilama deganeen oo gobolada ayay deganaayeen meel aan u raacan ma aqoonin waxay tiri alxamdulilah maadaama aan cideeda iga soo doonay oo cidiis isoo dooneen oo cideeda lala hadlay oo cideeda bixiyaan oo xaafadda aan ku dhasho kusoo koray leega ogyahay nin in uu guursaday bas way tiri ana kulli aan ma qarsaday oo cunug aabahiisa la aqoon ma aniga keen waa maya maadaama ninkan oo isoo doonay oo cidiisa la yaqaano oo meesha ka soo jeeda la yaqaano oo dadka xaafadda ogyihiin in aniga sharaf ii guursaday hadduu isbedelay tiri aniga khalaas waxa ii darnaalaheeday leedahay inuu aniga qarsado ama muxuu ahay hoos aan guursado ii darnaalaheed almiin waxay dhahday hadalkiisii sidii ay igu dambeysay waxay dhahday marka 3 sano cunugayga markuu gaaray magaaladii dhanaan nacay muxuu ahay dabcan cideedaan dib ugu soo noqday dhahday marka aan dhalay kadib cideeda ayaan dib ula noolaay intii hore laakiin guriga iska deganaa oo cideeda u dhow ku dhagan kadib markaan waayay tiri oo biilka iga goostay cideedaan ka maarin waayay cideedii way soo dhaweeyeen waxay dhahday gurigeena ayaan dib ugu soo laabtay gurigeena kan dib ugu soo laabtay waxba iga mahaleysneen cunugay waxba kama haleysneen wax alla wuxuu rabo muxuu ay waalidka ayaa u gadaayay dharka iyo hadduu daawo u baahan yahay caanihiisa xafaayadiisa waxba iga mahaleysneen kadib aniga magaalada nacay dhahday waa isla hadlay niyad jab ayaan ka qaaday dhahday ninkii khiyaanadiisa iyo sidii u yeelay muxuu ahaay warna kama hay mana i furi mana i qabo ka fasaqa hadii la dhahan waxaan dhahnay ka fasaqashada muxuu ahaay sharciga wuxuu ka qabo ani ma aqaan markaas aqoon fiican uma lahayn waa diiday dhahday inaan fasaqdo ilaahan tawakalay aabaheen wuxuu dhahay adiga hadaa saan aad iska sugaysid ilaa 5 sano oo laga warsugaa maadaama haddaba 3 sano uu saa usii maqan yahay iska sii sug marka sidii aniga marka aan iskaga aamusay tir laakiin dan iyo xaajo kama lahayn laakiin ilaahan ku dayay laakiin maalin le inaan arki doono ama la kulmi doono ama warkiisa aan heli doono waa ogaayay tiri kadib markii aan waxay tiri magaaladii aan nacay oo isla hadlay oo isku buuqay cideeda waxay dhaheen marka iska bax muxuu ahay Sacuudiga iska aad lacag isku keedan dareen waxa la iska bax Sacuudiga iska aad hadda shaqaysan kartin iska shaqayso cunugaaga wax ku soo tar hadii kale dan ha isdibin muxuu ahay iska bax marka maadaama qaraabadeeda meeshan ay joogeen saasa inta la igu soo diray inta ayaa imid kadib waa iska shaqaysan jiray dhahday cideed laakiin ima kalifi jirin oo biilka cunugaaga meel saar waxaasni ma dhihi jirin qof maadaama aniga muxuu ahay isku buuqsan ahay ayaga culayska iga yareeyeen laakiin aniga waxa awood cideeda u diri jiray almuhiim waxay dhahday maalin maalmaha kamid ah markaan Sacuudiga aan joogay hal sano gabdhaha isla deganeen waxaa looga wacay xaafada looga wacay ilaahay amarkiis xaafadii markii looga wacay waxaa la dhahay aroos ayaan qabnaa gabar ayaana loo aroosayaa amarka ilaahay fiirsadaya adduunyada way soo wareeganay way soo noqonaylee marka waxay dhahday gabar ayaa xaafad laga aroosay xaafadii ayaan tagnay xaafadii markii aan tagnay waxay leedahay xaafadii aan tagnay
gabadh waxaan ugu tagnay marka inaan anaga saacidno oo arooskeeda qabanqaabadeeda aan garab ka siino maadaama ninkii aroosi lahay uu banaanka ku maqan yahay uu imaanayo waxaana la dhahay garab baa idinkaga baahan yahay bas ninka marka guriga marka aan tagay oo ciddii aan isbaranaan cid aqoon ma lahayn gabdhaha kale oo dariska aan la deganahay oo is yaqaaneen oo qaraabada aan la ahay ayaga aqoon fiican isku lahaayeen guriga markaan tagay oo ciddii aan isbarano gabadha aan isbaranay waxay dhahday habeen anagoo qol fadhi ku jirno iska sheekaysanayno oo gabar walba ilada aan kanaa la socdaa waxaa la gabadhii aroosadeed adiga saaxiibkaana tusi maadaama uu maqan yahay kolley sawirra waa ka haysaa sawirra haddaa ka haysid sawiradiisan tusi sawiradeena tustay ninkii waayaba aan sawirka marka arkay waxay dhahday waaga igu barya kod waa isku naxay bas waa aamusay dhahday waxay tiri ma hadli kara haddaan hadlo muxuu ahay guri dumisaa noqonaa iyo qof dulmi damacsan oo gabadha arooskeeda muxuu ahay diidan ninkan aniga macluumaad ugu filan kama hayay waxay dhahday waa iska aamusay gabdhihii ayaan waxaan dhihi tiri intaan gabdhihii aan la hadlayna waxay dhahday abaayo ninka guursanaayo magaciis waxay dhahday ninka hebel hebelaa dhahaa hay magacii haddana wuu wataa waa aamusay dhahday ani marka khalaas maadaama uu egyahay laga aqoonin magacina uu wato ani waxay tiri igu dhamaatay waa iska aamusay kadib meeshaan sheekadan iskaga dhamaysanay waqtiga jiifka la gaarkaan jiifanay aniga iyo gabdhihii ila socday qolaana la siiyay qolkii anaga aan jiifnay bas gabdhihan waxaan dhahay saaxiibayaal aniga ninkii i qabay oo cunug iga dhalay iga dhuntay ninka gabadhan guursanayo uu egyahay lagama yaqaano isku magacna way yihiin laakiin laba shay oo kale inta ii dhiman haddii aan ogaado labada shay oo kale waa asigay labada shay kale maxaa waaye labada shay waxaan rabaa inaan ogaado meesha ay degan yihiin ciddiisa iyo meesha uu asaga waddanka Yurub hadda ka joogaan rabaa inaan ogaado haddii islahaadaan waa asigii ninkan bas gabadhiyaa tartiib loo weydiiyey maalintiida waxaa lahay saaxiibey xabiibkaaga ninka ku aroosaya intuu joogaa intuu ku nool yahay waddankuu ku nool yahay waddankaas ku nool yahay maasha allah ciddiis intay ku nool yihiin ciddiis meeshay degan yihiin haalihii markii ay heleen gabadhiyaa loo sheegay waxaa lahay طبعا عندي جروب على الجوجل لا كورتو اسمه الوشيك المقطع قبل أنا بحيرتها معلومات يد كفل إنه هشو كدبنا إيه مركز كدب إيه هذا شو بس مركي هالي لو كيني ويقشجن وحال هاي نينك عندي سلمشي دقنتها وضن كاسون الجوجل خلاص بحيتر نينك أسيقواي وضن كي ونينك إيه دكتة وجوج ونينك عن الجوجل ولو شيء عندي سنة قبل كي إيه دقناين كان مركي قبل يتصل هذا الشيء وحيد هذا أباي مياها عن حمانها إيه أركن muxuu ahaay ninkan aniga nink i guursaday oo cunug iga dhalay ayuu u egyahay lagama yaqaano magaciisana wuu wataa meesha ciddiis deganaan kan ciddiis degan yihiin waddanka uu joogeen kan asagana waddankaas ayuu joogaa marka waxaan rabaa inaa ii sheegtid inuu naag soo guursaday iyo in kale naagaan guursaday markuu dhahaa naagaan guursaday uu dhahay gabaraan guursaday Soomaaliya ayay joogtaa cunug ayay ii dhashay laakiin wuxuu igu dhahay tiri gabar qaylo badan ayay ahayd oo muran badan wax walba u sameeyay waa naag lacag jecel oo keen jecel oo ay dhibtay markuu wuxuu yiri waa iska furay waxaan ka baqay Yurub hadaan geeyo inay muxuu ahaay ay dhibto iyo wareerso ama iga tagto oo aniga meesha ku qasaaro marka naagtaas waa iska furay taasoo kaliya waligay guursaday saas igu dhahay saas ma ku dhahay haa waxay dhahday saas ku dhahay naagta uu guursaday aniga waaye naagta cunug u dhashay aniga waaye ma fahamtay waxaa weydiinaysaa naagta cunug u dhashay magaceeda soo weydii oo kaliya hadduu magacayga aniga kuu sheego ninkaan ninka i khiyaanay waay iska jir bas habeenkii ninkii la hadashay weesha sheekaysteen kadib yani si tartiib ay u weydiisay cunugaaga magaciisa naagta aa soo furtay magaceed sidii yani uu ugu sheegay markuu sida ugu sheegay waxaa ku dhamaatay inuu asiga yahay ninkan gabadhii marka hooyadeed ayay u sheegtay waxaa kaaga sii daran gabadhii wuxuu asna ka dhaadhiciyay in aroos hotel lagu dhigin muxuu ahay dabcan gabdhaha way sheekaysteen saas uu dhahay hotelku ugu dhigaayo uu dhahay waa ku wadi lahayo uu dhahay hana kala daadaadin uu dhahay markaan guursadayna marka cunug aan dhalayna marka aan guursaday oo uur aan yeesho waa baxay markii cunug aan dhalayna hadalku iga goostay telefoonadna iga badashtay anigana waxay tiri gabadhii marka aan nafkayga wuxuu igu yiri muxuu ahay aroos qarash hana gelin degdeg ina kugu wada rabaa muxuu ahay cid xataa aan la dagno cidaada xataa aan qol ka dagno marka aan arooska ka baxno aan inta aan joogi lahay aan joogo
muxuu ahay ani kolley waa baxooyaa maxaa aroos iyo muxuu ahay hotel iyo maxaana geliyey iyo guri in la ijaaro ama hotel la dego marka wuxuu dhahay tir guriga lehna lagu dhigo xaflad yar maadaama ani aan ku wadaayo guriga aan ku aqal galno muxuu ahay cidda qol ha noo banayso kadib aan waa baxayaa si degdeg inaan kugu wataa rabaa aniga naa gabar fiican u baahana inaan degdeg kugu wataa rabaa anu mustaqbal rabaa ahay saas ugu marka ana hadalkii tanna way ku qanacday marka sidii hore ugu qanacday tan ugu qanacday bas gabadhii markii warkii ay ayada gabadhii sheekaysteen oo iyada hadalkii la dhahay tan hadalkii la dhahay uu islahaaday oo magacii gabadhii ee cunug u soo dhashay gabadhan magaceedu uu yahay ninka magaciisa uu yahay adduunyadan islahaatay hooyada ayuu sheegtay marka hooyada ayuu sheegtay iyo aabaheed waxay dhahdeen hooy aabmiya ninkan gabadhan uu khiyaanay ninkan cunug ka soo dhalay ninkan gabadhan ayuu ka dhuuntay war haddii aan khaldan raali noqdo gabadhan ayuu cunug ka dhalay uu ka dhuuntay Soomaali ayuu uga dhuuntay aan wuxuu iigu sheekeeyay in naagta ay dhibtay 3 sanana hadda meel muxuu ahay kuma ogo iyo gabadhan sanadka ay inta joogto 4 sano ninkan aniga muxuu ahay ma gurso kari mana isku halay kari iyadaba wuxuu dhahay qarash hana gelinin hana kalifin inaad degdegsiin kugu wataan rabaa kadibna uu ka goostay anigana hadda wuxuu dhahay qarash ay gelinin inaad degdegsiin kugu wataan rabaa anigu iga dhuumanaa cidii marka waaga ku bari cid marka waa ku bariyay horta ninkina waqtigaas soo maashihiisa ayaa soo dhawaay cidda marka waxay ka codsatay inaan ninka hadda aan looga bixin gabadhii Soomaali ka imaatay cidda waxay ka codsatay maadaama ninka uu soo socdo asoo meeshiisa joogay inaan guurka looga bixin oo la dhihin gabar kuma hayno waxay dhaad ha imaada ninkan hadduu asaga horta markaan arko hadalkiisa iyo yani ninkii soo guursada waa aqaanaa markaan arko muxuu ahay inuu asaga yahay markaasaa looga baxaa laakiin hadda waxay tiri waxaan oo dhanbo waxaa laga yaabaa in oo sudfo ama si kadis isugu imaadeen marka waxay dhahdeen ninka guurka uga bixinina hadduu asaga ku soo baxo oo inta imaado anigana waa iska furaa xaqiigana waa ka qaadanaa ma fahamteen muxuu ahay hadduu asaga ku soo bixin oo nin kaleento oo waxaan dhan si kadis iskugu imaadeen macluumaadkan oo dhan muxuu ahay gabadhan uu guursanayaa marka waxay dhahday hadhihinina gabar kuma siinayna ninkan ha yimaado iska deeya haddii ninkii aan iqayaan uu ku soo baxo wuuba ku soo baxay waa ka badbaadeen hadduu ku soo bixi waayeen oo wixii aan macluumaadka oo dhan isku imaadeen gabadhan isku guursanayaa ana xaqiiqan ka qaadan haddii asaga ku soo baxay almuhim ninkii waqtigu imaan lahaa la gaaray wuu imaaday waqtigii markuu imaaday habeena waxaa la dhahay gabdhaha guriga jooga lagu barayaa qolka fadhiga ku fadhiyay gabdhihii ay imaadeen cidii soo gashay gabadhan sankay soo duubatay sanka markay duubatay qolkii ayay soo gashay bas way aragtay ninkii hor iyo hoos ka aragtay hadalkiisii aragtay qaabkiisa qofka marka aad sawirka aragtid iyo marka run u aragtid isma laha moogta asagoo dhan aragtay khalaas gabadhan marka iyada afkay duubatay oo wajigeeda ma arkin way ka soo baxday qolkii islaantii ka soo daba baxday waxay dhahday eedam yaha ninkan ninkii aniga iqayaani waaye naftirkiisi waaye oo biyo la marinin muxuu ahay gabarni haddaa siisanaysid adiga le waaye laakiin ninkan ninkii iqayaani waaye haddana aan waxaan rabaa inaan xaqiiqa qaato saas miya haa bas waxay tiri marka shibaa laga dhahaa biri subaxii gabadhan la mehri lahay biri subaxii markii muxuu ahay wadaadada imaadaan aad soo fadhiisanaysaa adiga markaasaan wixii jiray meesha ka sheegaysaa asagana anaga markaasaan u faataxaynaynaa waa adigana sa xaqaa uga qaadatid anagana ugu faataxayno bas subaxii yaa la gaaray subaxii markii la gaaray oo waqtigii meherkii odayaashii fadhiyaan oo shiiqi fadhiyo waxaa soo galay gabadhii la guursan lahay iyo gabadhii hore loo soo guursaday iyo hooyadeed ayaa soo galeen markay soo galeen muxuu ahaay weyla hadashay hebel miyaha fiican tahay horta waxaa lahay gabadhaan ma taqaanaa markaas wuxuu yiri ma aqaanin gabadhaan markaas waxay dhahay hebelow anoo hebel ma ay aqoonin markaasuu wiishka ku yeer ninkan oo adiga maxaa inta ku keenay aniga waxay tiri meeshaan waxaa i keenay xaqa i keenay ilaaha i keenay meeshaan inaan kugu helo inta ilaaha i keenay adigana ilaaha ku keenay inta imaan rabtay laakiin ani ilaaha igu kaa soo aadiyay ani inaan sacuudiga imaado oo gabadhan aaqiyaani rabtay aan kaa badbaadiyo ani xaqiiqa aan kaa qaato marka ninkan shaqligiisa marba wadan u tagaa oo gabdhaha ka khiyaana marka wadamo kale ma ogi laakiin wadan Soomaaliya gabadhan ka soo khiyaanay sacuudiga gabadhan ku khiyaani rabay inuu ka dhuntan ugu rabay bas adeerkii wuxuu dhahay oo gabadha dhalay la guursan rabay wuxuu adeero maadaama wiilkii gabadhan soo khiyaan aad tahay oo muxuu ahay ka dhuntay horta adiga ma tahay qiro ugu qirtay wixii dhan u qirtay wuxuu yiri ha aan duruufa ii geysay aan saana ii geysay muxuu ahay haddana xaqeedu waa siinaya
hadda xaqeed ma siinaysaa haa anaga horta waxaa lahay gabar ma ku siinayno oo aaminka ma kugu qabno maadaama gabar Soomaaliyeed ah hore uga dhuumatay horeyna aad u silcisay muxuu anaga gabar kale kuma siinayno maxaa yeelay gabadhan hadalka aad ku shukaansatay aad tan ku shukaansatay فهمت تان ماشي عمر سيسا تان مرسينيسا مركو حال أنا جبركم سينينو ساس أوجو أضجن ماشي وكعي مركو جود يعني حتى أدير وهكعي مركو بري أنا جبر أدي وكلنتا هاي أنا جبر إنك ويخياني أبي أنت مجوج هلكي أدير هذا أنت مجوجان أدين كطول إيه أدين كقرابي إيه إن كان حارب إن هذا اللي يجفر ربع ما دام أنا جفسق شذا الدين أساس أقول هين محو هدقنا كمسير ربي ومحو هاي ما برهبنين يقولونتي muxuu ahay in hadda la iga furaan raba xaqiiqan la iga siiyo horta waxa lahay gabadhan xaqiiqsi wuxuu aan hadda wax badan ma wato muxuu ahay wixii aan ku aqal gal lahay la isku soo talagalay waxa lahay iida siinaysa ma fahamtay kistiyareed oo muxuu ahay dahabkii gabadhan u gadan waa loo soo bixiyay muxuu ahay alaabtii jiifkii wixii la gada gurigii la diyaariyeen horta ciidan waxay dhaheen anaga gabar hadda gur ugu horeey anaga gurigan madajinin marka banaanka gur loogu soo ijaaray waxa lahay jiifkaagan anaga ma rabno oo soo gadnay كستي ذهب كان واتنا قبلنا أوقاتي كستي يروح حفلات اللي قلت لها إنه واتنا وحي سؤنا لو كاني قبل يا بحال هاي بحال هذا كستان أنا أقول جنسة ذهب كأنه ولا قصية ولا بحال هاي مدام قبلنا عاقي أنتي عنق أفرسن لجوك كورنا استحسن يسومال إجوكتي إصلا أنت جوكتي عنق لجوك كورنا هاي وحال قبلت حقيقي سمك وحير واحد هذا عن قبلنا أقول طلع قالي إذا حقاضته ما فهمتي إذا حقاضته محو هاي ساسين مع سلام إيجتاي أدين كانوا قبلينا مربي ورحال أنا قبل ما بكسينينو من قيانو الله هاتاي مركز سيريا نينكي فيلين كيس أي كعنى وأقولهم هاتاي مركز نمانك معركتي ومحو هاي أنتي لها وكو إيمانا سانا كويلا وكو عدينا وكو مذوبينا مركز بحاكوسو دعونا بدن كود وخيانو لوشن نين اللي يقان هدوصن هين أما قرابة كله أما درس كله أما dadkiisa mas'uulka yihiin oo dad la yaqaan oo muxuu ahay ama ka ag dhow xataa oo qof la soo qaban kara xataa ka dhalay ama qaraabo leh marka qof magaalada kula deganeen marka adiga gabarsiisatid hadhood meel u raacatid malahan marka gabadhii uu guursan lahayn ilaaha ka badbaadiyay tii hore uu guursado uu ka dhuntayna iyada ilaaha muxuu ahay xaqeeda ugu soo celiyay qisadii gabadh ila soo wadaagtay xiraad asxaabtaada la wadaag ayaan tan gabdhaha si xun loo qayaana marka ha iska ilaaliyaan asxaabtii sharafta qisadana way nagu dheeraatay marka waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iidi doontiin youtube-kayga cusubne subscribe iyo soo saara iyo booqda insha Allah waxaan idinkaga tagayaa sida caadano ahayd saliga nabigeena suuban calayhi afdalu salaatu wassalaam allahumma salli wa sallim wa baarik ala sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mac salaam asxaabta sharafta leh